وما سوى فريسين عيدو كجوابه التوتل الجواب إيجا مدن ما بعرف كبدي ما نقرنيه قف كجواب هذا مدن ما جواب هذا جيالو جوابه نفط قرا أما قبل قرا دون كونو له حراي أنا أوجين بين الناس أمسنين حد واحد runtu waa lama huraan in xaqiiqada lagu rafto oo wixii jira laga hadlo iyo sida ay wax u dhaceen waa muhiim maxaa ka jira wararka laga baahiyo idil barqad ee la leeyahay waxay tunka u ridatay oo jeebka ku ridatay samadana ku qadhiidhay farxaan oo waliba ay jeceshahay sidoo kalena maxaa ka jira wararka kale idil barqad laga baahiyay إلا اللي يهي فرحان يدو وحي سناب شات كودا هادليين كوبيا 8 ساعات ما أقل يرهر أي بروسين كواسيين ما تشعيل صور مدى صوت تحنا أو إمي كرافت اللاعبة ومحين نحن يوحا شرا أرنتا سنين دوني يدنا إنا كومنت قبحيو أولي با كومنت عافما قباني نقسيو سيدو كالي إذي البرخد لفتقيدا ayaa si sarbeeba oo turxul leh uga hadashay wararka laga baahinayo iyo shaambada weyn ee lagu dhajinayaba sidoo kale waxaan doonayaa inaan istul taago muuqaal dhawaan aan ku baahiyay warada TV oo aan kaga hadlayay kunnimada uu farxaan ku sameeyay rasmi rays dad fara badan oo feedback ka soo bixiyay oo yiri qabyaalad iyo cusurnimo ayaad wadaa reeboore ma ayad caayaysa arintaas ayaan doonaya iyadana inaan istul taago oo aan comment qurux badan ka bixiyo barnaamijka diyuna waa anigoo daakar saalax askara fadlan intaana muuqaalkayga dulucdiisa galin waxaan ka codsanayaa inaad kanalka subscribe saarto gambaleelkana aad furato muuqaalkana sii share garayso like iyo commentigu waa tayada iyo caafimaadka YouTube-ka noogu roonow mahadsanid وما سوى فريسين عيدو كجوابه التوتل الجواب إيجا مدن ما بعرف كبدي ما نقرنيه قف كجواب هذا مدن ما جواب هذا جيالو جوابه نفط قرا أما قبل قرا دون كونو له حراي أنا أوجين بين الناس أمسنين حد واحد بين الناس ما أمسنين أنت عقلك هو نفسن إلى كعبس بكتيرو وناجا كتلسا مر والبا قبل جوده كفكرة الرنت الشاقة الرنت وصاحبك دعدع قونين يعني نقول أركن صاحبك الحي وارد قيمة لكوري ولا أونو تشرين برضو وارد عم بقف كوري والشيء وارد كي قيمة بدنا تعب كيس الشيطان قاضو الشيطان ببدلو هذا نينت وانا اسمه برضو الحقيقة وانا كيف حسنين قيمة بخلو تنظيمان ينسو حدي اسمع لين انت باتش نفسك كشكينيسا بس ويت عندك نولش إذا كذي أولادي إذا هي نولش أن كنوا له نولش أن حلين كنوا له سمايستاي مو يعني وحكرت وش كذا كسبوا لهم بس ويت عندك إن ودميت واحد ليه دقافورة بس كذا لكن واحد كوجي على جيربوكس كذا ما جيربوكس بخير قفز كده إلهي وحوسمي بالعبارة ير كعبر بالكويرة فكر بالفكر وإلهي مسكع نوسمي بالكان حلوسمي نذكر فكرته حلوسمي نذبح ونكسب وقفزته لو مسمي نسكن سيدي تاني حشيش أما داس عن يدود دبادة كدلوش أما فاستو قبل دبادة كدلوش أنسكن نغطو صوران ayaa laga hayaa allahayow maxaa wax isu muuqda maalintaad caan noqoto ogsoonow bad iyo bohol ayaad ku dhacaysaa oo hee waxay bulshadu ku odhanayaan waa kaas moojiye idil barqad waxay si adag oo turxul leh oo sarbeebna ku dheehan tahay ay uga hadashay wararka gilgilay social media sida Facebooka YouTube-ka Instagram-ka iyo nuxnuxda jirta iyo shaambada weyn ee afarkeesta ee tacalka lagaga dhijinayaba waxay ku jawaabtay
idil barkhad waxa muhiima bay tiri qof sharaf leh oo milgale ayaa loo jawaabaa qof geeya in loo jawaabo ayaa loo jawaabaa laakiinse qof aan geyin oo iska hadlay inaad uba jawaabto waaba khalad bay tiri tusaale yar ayaan ku siinayaa awal maamaahdii ahayd layligu biyo kashiisa ku jira ayuu ka digaa maxaa loola jeeday qofka bini'aadamka markuu xaqiiqada iyo runta og yahay waxa laga sheegayaana ay tahay been kalsooni ayuu tallaabsadaa kalsooni ayaanu hadlaa kalsooni ayaanu seexdaa had iyo jeer waxa la isku hawle ee waqtiga la geliyo waa waxaanay waxba ka jirin amaba waxay xoogaa wax ka jiraanoo shaambad yar lagugu dhufanayo shayga lagaa been abuurtay iskuma hawshid waayo waxaad og tahay inaanay waxba kama jirinba kalsooni naftaada ayaad ka qabtaa haddaba idil barkhad iyo oo arrimaha iyo arrimo kale si duulxule uga jawaabaysa ayaa waxay tidhi aniga waxaas la baahinayo iguma socdaan dadka shubayana dad loo jawaabo ma mudna sidoo kalena waxay tidhi waa dad bilaa rabaayada oo hee dhaqan xumo lagu soo koriyey haddii hooyadooyinkood iyo aabbahoodna u soo hagar baxeen xitaa shaydaan duursaday sidaa darteed u jawaabi maayo aniga haddii aan aragtidayda ka dhiibto idil barkhad waa fanaanad guun weyn oo fankiiyo saaxadda ku soo jirta muddo dheer oo weliba hooyooyinka soomaaliyeed ka mid ah hooyooyinka ugu mudan in ixtiraamo weliba u qalantaa waa hooyo soo guursatay carruur waaweyn dhashay oo waddanka norway taalla haddii aanan khaldanayn ma aha hooyo lagu yaqaano ciyaal suuqnimo iyo inay ragga ama ciyaalka ka yaryarba ay ugaadhsataba waa sidaan anigu aragtidayda qabee arrin kale ayaan doonayaa inaan isdul taago maanta la kala dhammaan maayee baryahanba waxa la baahinayey shaambadda weyn ee lagu dhejinayo idil barkhad waxaa loo soo daliishanayey in farxaan iyo idil barkhad ay ka wada hadlayeen khadka muddo ku dhow 11 saacadood waa daliilka keliya u daliishanayaan bulshada qalloocda ee baraha bulshada isticmaasha ee ay leeyihiin labada qof waxbaa ka dhaxeeya intaas aan xoogaa yar inaga shaafiyo nuxnux yaroo aniga ay soo gaadho taa idinku qabtaan ka duwan baan inii sheegayaa arrinta sidaad u fahanteen maaha 11 saacadood xitaa dadka isjecel ma wada hadlaan ee ogsoonaadaan muddada intaa leeg waxay ka wada hadlayeen maxay meesha tahay anigu sidaan ku maqlay idil barkhad way odayeynaysay waana nabadoon waxaana isku dayaysay sidii ay isugu soo jiidi lahayd rasmi rays iyo farxaan oo weliba ay waanwaaniyo nabadgelyo u dhexdhigi lahayd laakiinse farxaan ayaa ku gacan saydhay oo yidhi never waxaa waxba kama jiraan weeyaan ileen nin meelo u caddee meeli ka madowey waana ku gacan saydha waana sababta kaliftay inay wakhti intaa dheer ay wada hadlaan oo 11 saacadooda sababta ugu aamusan tahay arrintan uga jawaabta ayaa waxay tahay waa sidan horeba inigu sheegaye waa qof kalsooni qaba waxna wax ka jiraan maaha sidaa darteed iskuma hawlima maysaba intaa meela fahanteen wixii wax kala qabow waxaan filayaa maxkamadda idil barkhad iyo weliba farxaan ayaa tegi doontaane laakiinse waxaa muhiim ah raggeena youtuberada ama bulshadayna youtube-ka ka ganacsata ee muuqaalada baahinaysa inay ilaahay ka cabsataan wararka aad weliba baahinayso inaad iska ilaaliso iska shaandhayso waa muhiim idil barkhad iyo farxaan inaanay waxba ka dhexayn aadba waad ogsoon tahay ka youtube-ka muuqaalka ka baahinaya iyo weliba ka daawanayuube ilaahay ha ka cabsada arrinta ugu dambaysa ee aan doonaya inaan isdul taagaa waxay tahay muuqaal aan baahiye 2 habeen ka hor oo aan kaga hadlayay amaba ugu magac darayba gunta iyo gobta kala war la'ah keesa wanaagsan muuqaalkan oo aan isbarbar dhigayay
wixii rasmi rays sidii ay rasmi rays ula dhaqantay markii farxaan ula jooga Kenya iyo sida farxaan ula dhaqmay markii farxaan ula tagay boorame rasmi rays feedback dad fara ku tirisa igaga soo noqdeen waxay leeyihiin waxaad nacabta daakiro cusur ayaa tahay bulshada reer boorame ayaad cayd xaasha waduud youtube-kayga ama waridaad TV maaha waridaad muuqaalo lagu daadihinayo lagu caayayo qabiilo Soomaaliyeed waxaana ka madnuuca waridaad TV in qabiilo la caayo qabyaaladba ama siyaasadba ama wax kasto Soomaalidu ay ka bogto inaan kaba hadalaba laakiinse waxa muhiim ah qof kasto dulman haddii lagu nacayo waa inaan taageeraa arrin yaroo kale kugu caqli celinaya rasmi rays waa qolo matalow aniguna sayaanahay aan si sarbeeba kugu jawaabo anigu gobolka Togdheer magaalada Burco ayaan ka soo jeedaa marka waxa iga su'aala rasmi rays ma reer Burco sidee baad ii leedahay qabyaalad ayaad wadaa oo qabyaalad ayaad ku taageertaa waxaan filayaa arrinta jawaabteeda wad haysataa ee bal dib isugu noqo iskuma haysano in lamaane ama laba qof oo isjecel ay isjiri karaan laakiinse arrinta kaliya ee bulsho fara badan ay aad uga cadhoodan ayaa waxay tahay ninkii naagtu markay isku dhacaan ma aha ninku in uu alaabta qofta dumar ay sidata ka qaado oo waliba deegaanku ka soo jeeday ku dulmiyo oo waliba iyada uur leh uu gacan u qaado taasi waa gunnimo arrin labaad baan ku raacinaya oo dad badan ay ka cadhoodeen anigu waxaan idhi isaga ma diidin inuu kuba khaldamabe laakiinse faamiligiisa uu ka soo jeedo hadda u fiirsa hadalka waa hooyadii waa aabihii waa walaaladii maxay uga qaban waayeen gabadha oo alaabteeda uu ka qaadayo uga qaadi waayeen ama xilliga iyadoo uur leh uu gacan u qaadayo uga qaban waayeen miyay kula socdaan baan idhi sidaa darteed baa dad kale qabiilkii qabyaaladii lagula carareen bal adiguna arrintaa waad ka soo dhiman doontaa aragtidaade yeelkeede isku soo wada duuduub idil barkhad waa hooyo Soomaaliyeed ah laga xishoodo ayaan leeyahay dadka wararka ka baahinayo Allahiina abuurtay ee ini arsaaqa caafimaadka ku siiyay uga xishood oo beentana ka daa wassalaamu calaykum